qaybgal keeda intii soo qaban qaabsan oo mahad celinayna waxaan isleenahay waa markii labaad hadda ka hor ganacsataan saan u badnayn laakiin isxil qaantay waa waagii Itoobiya intii dhibki badnaa la soo maray baa maalin qaban noo sameeyay markaas waxay yiraahdeen waxaan idinkaga mahad celinaynaa nafta hornimadii wax qabadka idinkaga mahad celinayno waxaan idinkaga mahad celinaynaa naftii aad isku dhigteen ganacsiga idinkaga mahad celinaynaa waa maalintii labaad marka maantayna ganacsatadu badan yihiin maantay badan yihiin maalintaas in kooban bay ahayd oo markaas ayaguna maxaad u arkay inay mudan tahay idinka marka waxaan idinkaga mahad celinaynaa fakarka fiican ee aad qaadateen waan idinkaga mahad celinaynaa inta kale khiyaartii kala sheegtay oo iga horeysay waxa weeye qof walba wuxuu ku sharfan yahay qofka kale oo ganacsiga waxaan isku midnahay qofka waxa adiga ganacsiga qofka ugu hooseeya waxa saameeya waa qofka ugu sareeyana saameynaya waxa xaqiiqo ah gudoomiyuhu inuu wax badan oo la og yahay iyo waxaan la ogeynba uu ka qabtay isku aadiska ganacsiga dhibkiisa maanta waxaan ku faraxsanahay inaan isku mahad celino idinkuna waa mahadsantihiin fakarka fiican aad kaga mahad celinaa annagana wax qabadkii aan idinku hogaaminay baan nooga mahad celiseen xafiiska iskale sharafkaas iyo hoggaanka gudoomiyaha ayaa iskale marka waxayna sharaftu ku wanaagsan tahay inaan iskaashano annaga ganacsatada waxaan iska kaashanaa waxa weeye oo markii culays yimaado aan ganacsatada u soo bandhigno waxyaabaha idinku aad ku hawlantihiin oo qayb ka tihiin oo sadaqada inaan iska kaashano markii sadaqa timaado waxyaabaha caqabada markay yimaadaan waraan iskaalmaysano aan sadaqa isku darsano si sharaf leh aan u geysano intaan fardi u geyn lahayn aan waxaas maaragta aan haddii musiibo dhacdo haddii dab dhaco haddii muxuu ahaadee fatahaad dhacdo haddii qarax dhaco dadku wax kastoo dhacaya waxa weeye waxay kasii go'ayaan ganacsiga customerkiisii iyo hantidiisi bay kasii wax ka go'aya noqonayaan marka inaan waxyaabahaas ka kaashano annaga sharafay noo tahay waxyaabaha isbitaalada iyo marka culaysi ka yimaadaan inaan iska kaashano sharafay noo tahay waxaan idinkaga mahad celinaynaa arrintaas waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha rugta ganacsiga si uu muxuu ahaadee kelmadiisana u yidhahdo noona soo xiro aad u mahadsantiin